بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن إدل هانتي ملك استجوكتان إن شاء الله تعالى تضبط كانوا حينقود الشيء كيسن دونا برنامج كني أنا قوم قعدني دقوق ليش الشيء أما حي ده وناكسن برنامج كان ما أنت برنامج دي كهرية أنا سوق قعدني وحن سوق قعدني قيبة كم يده حي ده وحن صوت لما من حي ده دون يقيب سمان صدق قيبات حرير الله لا يضحي ربي جا يحرير الله لا يضحي تذكر كلا يحرير الله لا يضحي النفط هذا إن شاء الله تعالى ما أنت حين كود الشيء كيسان دونا قيبتي لبعض أو هيد حرير كالله لا يضحي تذكر كلا سين هرو صوت المعمني لبا جرا لبا وين تحسناتان حريركو سيدي سوا مهم أو مركا أسكون الله جهل ليو relationshipku waa muhiim sidoo kale waxa jira qodobka labaad rabtaan inuu ogaado waxa weeyaan isla faahno waxa weeyaan xiriirka aad la leedahay dadka kale walaabid lagama maarmaan waxaan leenahay lagama maarmaan waa fidrada aadamaha ku abuuran bay kamid tahay qofku inuu dadka kale beeyada kale la noolaado oo dadka kale uu la noolal tacaamulo macaamulkaasuna suurtagal ma dadka uu la tacaamulay suurtagal ma haddaan dadka aan xiriir ka wada dhaxaynin ama contractual relationship ha noqdo oo alaaqa tacaqudiyya ha noqdo ama ha noqoto relationship kale ha noqotay waa laga maarmaan waayo qofka bini'aadamka wuxuu ka kooban yahay bini'aadamku wuxuu ka kooban yahay si Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku nasaba wa sihra tafir iyo xidid iyo xigaal bayna ugnaana sidoo kale waxa leedahay asxaab ku hareeraysan oo wadaagtihiin baa jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxaan idka abuurnay yaa ayuha nnaas inna khalaqnaakum min dakarin wa untha Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxaan idka abuurnay lab iyo dhadig waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila waxaan idka yeelnay Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay shu'ub iyo ummado iyo qabiilo ayaan idka yeelnay ummadaas oo ka kala kooban qabiilo kala duwan Ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmadu uga yeelay waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa inoo tilmaamay wuxuu leeyahay litacaarafu saas ku garataan badbadkiina kala ay adigu kala aqoonsataan marka waxaan leenahay fidrada bini'aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay fidrata Allah allati fadara an-nas 'alayha ayaa waxa kamid ah in fidrada waxa kamid ah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala basharkan uu ka dhigay midka kale mid ku tiirsan oo midka kale uu ku tiirsan yahay ka yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waxaan leenahay walaabud inaad xiriir lahaataa oo aad xidho kala duwan inaad lahaataa hadday noqoto xiriir aad la leedahay waalidka hadday noqoto xiriir aad la leedahay zawjadaada hadday noqoto xiriir aad la leedahay asxaabtaada oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo tilmaamayaa in xiriiradaas haddaanay wanaagsanaanin oo xiriiradaas marka qaar ay ku haligi karayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaani ubadkiinu iyo oriyihiinu idin halaagi oo fidnaan yaani idin horseedin سو كل الله سبحانه وتعالى وقد القرآن كجوار ما أصحابته يو مكان ذيك التاجين الله في الله يوم يدين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الله سبحانه وتعالى كنت نامي الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان كنت نامي ويوم يعض الظالم على يديه الله سبحانه وتعالى آيات كنت نامي ويوم يعض الظالم على يديه إلى حتى الآن حتى الله سبحانه وتعالى كموت من علم عن قيامه سيأرك وأدري كموت من علم عن تكل يقل فرق اليقني ما عن كل يقني الله سبحانه وتعالى كنت نامي على يديه جمع الله سبحانه وتعالى كذا مركا waxa kaliya qofkaas gacantiisa la qaninayaan waxa weeyaan inuu saaxiibkii lumiyay yaa weylata laytani lam taqif filan khalila wa kila subhanahu wa ta'ala ku tilmaamaya marka waxa leenahay xidhaas hadaanad ka taxadirin oo aanad qofka xiriirka la samaysanaysa aanad ka taxadirin xiriirada aanad qofka wanaagsan xiriirkiisa aanad si wanaagsan si xoogin wadwaayisa marka waxaan leenahay xiriirka aad dadka la leedahay waa laabud waa laga maarmaan oo fidrada bini'aadamka ku abuurantay sidoo kale waxaan leenahay xiriirkaas waa xiriir muhiim ah oo qofku inuu barto ay tahay hatta laan iminka waxa la daraaseeyaa how to read the people qofka saad bini'aadamka wajigiisa soo akhri lahay ogowna xiriiradu dadka kale la leedahay waxay ka bilowmaan saragtida koowaad waa ka Soomaalida halkay ka muuqato barasho horteed ay nicin waa Soomaalida taala qofkan Facebook maraa ama channel buu maraa xiriirku wuxuu ka bilowmaa isaab intiisu yahay ama food step kiisu yahay waxa weeyaan isaragtida qofka isaragtaan ayaa waxaad ka qaadanaysaa qofka perception baad ka qaadanaysaa labaanay culimadu kala qaybiyaan qofkaas inaad tiraahdo qofka xiriirkiisa waan sii wadaya iyo qofka halkaas aan ku joojinay xiriirkiisa
culimada markaa qofka xiriirkiisa la sii waday way sii kala qaadeen waxay yiraahdaan qofka aad xiriirkiisa sii wadaysaa sii joogteynaysaa waa laba qaybood waa qof aad salaanta u mid ka dhaxaynayso salaanta ay salaamaysaan isnabdaadinaysaan markaad kulantaan iyo qof aad xiriir qoto dheer wada yeelanaysaan marka waxaan tilmaamaynaa waxaan leenahay marka حتى الآن وحلا أخرستا والله بعدا لدراسية قفك أركتها كودا سبرانيسان قفك صاد أما معلومه كواد أردن صاد قفك وجهي سو أخرسان هاي قفك صاد بعدي سو أخرسان يا تريتيس كيسيو كاركتر كيس عدو بران هاي قفك الله لدراسية مقالة برتا قلبك صد حالا سليها تمام تحويا لأن ما حد وقبع عند حوالي للاس وحين لأن واحد وقبع عند هاي وأنا كان هروسات المعملية وحين لي إنسانكو فردانيga kuma qurux badna xadaaradan imka galbeed ayaa waxay dhashay waxyaabaha ay dhashay waxa kamid ah individualism kuna waxa uu janjeeraa materialka ama ashyaadu u tartay uu janjeeraa oo qofku halkii qofka la qiimeyn lahaa qofkan aad xiriirka yeelanaysaa ama qofkan aad wadaagta noqonaysaan halkii aad qofka qiimeyn lahay oo isaga dabeecadiisa characterkiisa waxa uu qabto waxa uu ku dhisay mabaadiidu u taagan qofka halka ku qiimeyn lahayd ay qofka wax ku qiimeynaysa ashyaada uu sito ashyaada uu haysto ayaad ku qiimeynaysaa oo marka la joogo civilization-ka deetana maxay taas u dhashay waxay dhashay in la yiraahdo bini'aadamka miyaan laga maarmi karin miyaan rabada la isticmaali karin miyaan kali noolaash miyaan kaligi socnood miyaan qurux badnayn laakiin waxa leeyahay cagsigeeda sunnaha ilaahay kownkan ayaa waxa إلهي سبحانه وتعالى وياهي كسونها إلهي سبحانه كون كون قلت له وحيه بالآدم كونه بربابر كيسا كلا كتير سنادو إن بربابر كلا يشقاله ونقدان سي أدوية سوكا سودا ما يسترتو أو وحيابه لقبني أما productivity كيسا سودا ما يسترتو بربابر كلا كتير سنيه أيا إلهي سبحانه وتعالى سونها كون كون قلت له قال واحد شيء مركا انتهينا كبحين موضوع عاس واحد شيء وحيابه حوجية وحيابه وناجية حرير قرادة ضدك وحيابها وحا ugu horeeyaan oran karaya waxa jirta qawaacid kawni ah ama principles asali ah oo qaanuuna dadku ay wada isticmaalaan oo dadku ay ku dismiyiin ba jira oo kawniya qawaaniintaas waxa kamid ah nabiga kaleey salaatu wasalaam in badan buu isticmaalaa waxa kamid ah qawaaniintaas qaanuunka leeyahay bismiga anzilu an-nas manazilahum أما إن كست حديثنا نقول لكن حتى نوع قانون كوني وأنزل الناس منازلهم قف كست بوس كست دجي أنزل الناس منازلهم قف كست واحد كذا موجود وكهرلو واحد كذا راديو ويسكا واحد كذا ميكروويف زي رعان راديو ستيشن كست موجود بكهرلا هذا الحصتان الراوية هره وحل جنشري موجودها وحل قعنتها الوجود جري وموجوداس marka aad gaadid ayaa waxa soo baxaysa FMT BBC VOA idaacadaha dhageysan jirnay ayaa soo baxaysa marka waxa jirta saar koolkaas kala qof kasta wuxuu mawjad uu ka hadlaa wax buu daneeyaa dabeecada gooni u leeyahay marka qaacidadan waxay oranaysaa ama qaanuunkan wuxuu oranayaa qof kasta mawjad uu ka hadlayo kala hadal tus qofkan ina daneynaysid sababta kaliya ku dareensiinaysa qofka inaad deynayso waxa weeyaan qofkan waxa uu xiiseynayo ma waxa uu danaynayo inaad kala hadashid hal tusaalaan ka soo qaadanaya qaacidadaas oo nabiga kaleey salaatu wasalaam siiradiisa ku sugan siirada nabiga kaleey salaatu wasalaam way ka buuxdaa laakiin hal iyo laba ka soo qaadanaya nabiga kaleey salaatu wasalaam fi fathi makkah nabiga kaleey salaatu wasalaam qeybta siiradiisa wada haysaano 13 sano Makka ku noolaa dadana Madiina hijrooday مدينة مركو جوي لا دور سنة جوي لا سجار سنة تضبط سنة مركو ميلها جوي النبي عليه الصلاة والسلام مكايو فرطة انت هون مكة فرنا كان النبي عليه الصلاة والسلام عيدا بدن بصورت عيدا بدن بصوق حيستي ما مقال مكة دوليت كي دقي مقال مكة مركو دوليت كي دقي أصحابتي النبي عليه الصلاة والسلام ولي بقى نبي أديركي من كم ده أو عباس اللي هذا ونبي أديركي ها أيها صوب حية لكن جيشكي دقيقة قوتو اللي ميشو دي فريستي دبكو دي وحود إسراتون أي حصابة يا عباس رسول حورانا يا ما أنت وهوجي قريش ما كده قريش بعد قريب وهوجي قريش هدين النبي عليه الصلاة والسلام مقالة دا فرطو ودقال فرطو ويلي جود هلا جاسا كسعونية إلا ما أنت قيمة لك قارن
balaan baxo markaa uu baxay wuxuu raadinaya markaa inuu qof ari jira ama qof sahan inuu la kulmo siduu uga warramo xaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo inay Quraysh soo dhibto nabiga calayhi salaatu wasalaam soo dhibto intaanu dagaal ku furan markuu soo baxay saa qisada ka sheekeynaya wuxuu leeyahay markaa soo baxay ayaan waxa aan dareemay cod baan dareemay saaba waa Abu Sufyaan ibn Harb waanu yeeray Abu Sufyaan oo hoggaagay maanta waa kan nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo dul fariistay haddaad maka haddaydan soo dhiibinna waxa weeyaan luquntaadu kurka lagu jaraya maxaa xalay markaa ku odhanaya Abu Sufyaan wuxuu ku odhanayaa ina mari baqalbu markaa baqashii nabiga calayhi salaatu wasalaam saaran yahay wata Abbas xolay baqashayaan xaggeeda dama soo kor nabiga galyo ku weydiinaya sidii bay ku dhacday nabiga isula tageen aduu xawaadis fara badan baa intii jidka kusoo jiray soo dhex martay sida inuu Umar qabsaday oo kala Umar iyagoo isla ordaya ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam u galeen Umar leeyahay markaa iyo ogolo nabigi Allah ninkan inaan kurka ka gooyo sababtoo ah maanta heshiis la'aan buu gacanteeda soo galay waana cadowgii Ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam magangeliyadii Abbas uu ka aqbalayaa wuxuu leeyahay biris wax markaa waa biristaan iyo kaalay caawina orda kula seexday sidii buu waagu ku bariyaa Abbas sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam u keenaya adigu hadallo badan baa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo Abbas dhex maraya sidii uu ku yiraahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam war miyaanad haboonin inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala qirtid oo leeyahay oo miyaanad ogeyn rasuulka Ilaahay ma taas rasuulka Ilaahay taas shaki baa taa ama taas inaad rasuulka Ilaahay tahay shaki baa naftayda wali kaga jira markaas oo Abbas qoranaya islaam hadii kale kurka lagu hordhigaya sidii uu Abu Sufyaan ku islaamaya marka Abbas baa wuxuu halka ka soo soconana weeyaan Abbas wuxuu ku oranaya nabiga calayhi salaatu wasalaam Abu Sufyaan waa nin faanka iyo fakhriga jecel u yeel markaa wax weyn oo lagu xuso sidoo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku qaadanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu qof dadka dabeecadahooda yaqaana traitiska iyo dadka characterkooda dadka aad u diraasiyo yaqaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu oranayaa halku dhiga caanka oranaya qofka guriga Abu Sufyaan gala waa aamin qofka Kacbada abaabadeeda soo ku dhagan ama ku jira aragtaan isna waa aamin marka Abu Sufyaan maxaa lagu lamaaniyay Kacbadii ayaa lagu lamaaniyay waxaan loo yeelay waxaan noqday qofkii guriga Abu Sufyaan galay inuu aamin noqdo saas awgeed waxay noqotay Quraysh wuxuu noqday Quraysh nin magac weyn ku leh ayuu noqday maaha muhiimadu dhacdada nabiga calayhi salaatu wasalaam weedha nabiga calayhi salaatu wasalaam Abu Sufyaan u tilmaamay laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay inuu qalbiga Abu Sufyaan soo dhaweeyo oo diinta ku soo dhaweeyo isku dayay nabiga calayhi salaatu wasalaam ficlan sidii baa dhacday oo culimadu siyar ku xitmaamaan markii nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam magaalooyinkii muslimiintu furteen oo dhan waa laga wada ridoobay saddex magaalo culimadu tilmaamaan waa Madiina iyo Makka iyo Taif Abu Sufyaan wuxuu ka mid ahaa raggii sugay gomadaha Makka raggii sugay buu ka mid ahaa marka waxay tilmaamaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sidoo dadka u kala yaqaanay iyo sidoo dadka diinta ugu soo kala Abu Sufyaan oo ay naqaanay qoortu soo islaamay oo fatxu Makka u islaamay tusaalayaal badan baa qaacidada siilada nabiga calayhi salaatu wasalaam tusaalahan maalintii nabiga calayhi salaatu wasalaam sulh Hudaybiya waxa jira dhowr nin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ay Quraysh u soo dirtay baa jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu soo inay wada hadlaan ay ugu soo direen ragga waxa kamid ahaa Suhayl waad garanaysaan iyo odayga kale magaciisa waa ilaaway laakiin dhowr saddex oday ay soo direen odayga waxa kamid ahaa ninkaan idin sheegay Sayyid Qawmin uu ahaa I think Quraysh nimankii la deganaa Quraysh ma ahayn isaga laakiin Quraysh nimanka xabaashta la deganaa wuxuu garanayay markaa hadiga iyo Kacbada iyo qiimeedii waxa soo dhan buu garanayay marka waxay u soo kaxaysteen iyagu in ay u tilmaameen in Kacbadii lagu soo duulay way u soo direen nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu waxaad ka horgeysaa ninkan wuxuu jecel yahay waa nin Kacbada aad u qiimeeya xajka iyo umrada aad u qadariya waxaad u dirtaan ka horgeysaan hadiga iyo hadigii ka horgeeya geela ka horgeeya sidii asxaabtii sameeyeen markuu arkay wuxuu nimankani wuxuu arkay in ay nimankan u socon dagaal ay u socdaan inay umreystaan Quraysh intii uu kala noqday Suhayl waa garaysan nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu arkay waa kii sahla amrukum arrinkiini wuu fuuday marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhrisanayay wuxuu garanayay dadka dabeecadooda iyo dhaqankooda ayuu wada garanayay iyo wixii ku haboon ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam garanayay taas waa qaacido qawaacid fara badan baa jira waxa kamid ah Dr. Yaasir baan ka dhageystay maalin
markaas yar laga sameeyo la 3 saac soconaya waxa kamida qawaacid fara badan buu ku sheegay waxa kamida qawaacidaas wuxuu yiri culimo kalena way tilmaameen كلما ازداد مهاراتك زاد حاجة الناس إليك وزاد استغناؤك عن الناس وحليه مركز صاي كردو مهاراتك يسكيلسك وحيابها تقانا مركي كردان علمك مركز تو كردو waxa fara badanaya xaajada ay dadku adiga ku qabaan soo kale wuxuu leeyahay waxa yaraanaya dadka aad u baahidaadu qabtid iyadoo ay leenahay dadku isku tiirsan haddana markasto aad dadka ka maarantid oo markasto oo aad isku filnaansho gaadid ama markasto ay xidhadaad wanaagsanaadeen weeyaan Soomaalidu waa takamaad waxay tiri barya badan iyo bukaan badan waa la isku nacaabay tiri Soomaalidu runtii haddii baryada markasta farabato ama xaajada dadka aad u leedahay barto xidhadii waa nusqaamayaan wuxuu noqonayaa xiriir lug kaliya ku taagan oo adigu aad noqonayso shilinta aad taqaanaa waa xoolaha cunta marka waxaan wasa dhiigi ka nuugta waxaan noqonaysaa marka inaad adigu shilin noqotid ay noqonaysaa marka markasto ay farabataan cilmigaagu iyo waxa taqaanaa tusaalahan hadda tahay in xisaabiyahana ama hadda tahay in qiraa'adka ku yaqaana hadda ani kaan xirfada taqaano xirfadaha laga maarmaanka nolosha dhan hadii aad taqaanid laga maarmaanka ku ah haday noqoto saddex wada tacaamul lahayd haday noqoto sidaad wax cusub u baran lahayd ani kaan xirfadaha noqoto haday xirfadaha kullama ay bataan oo kullama dadka aad ka maarantid kullama ay dadka ka maarantidna waxa badanaya xidhada dadka la leedahay midna way jirtaa dadku waxay kugu qiimeeyeen waxa aad taqaanid oo waxay noqonayaan dadku marka dadka wareysatid siba connection kaaga relationship kaaga ku kordhay ama inta wadada saad ku baratay qoranayaan qof kasta waxa uu bartay waxa aan aqaano oo qof waxa qoranayaan waxa uu bartay haduu nin ganacsigayga dadka noocaas aan isku baranay dadka noocaas waxaan isku baranay samafalka iyo volunteerism ka ayaan isku baranay marka kullama ay badato maharaadkaagu oo kullama relationship kaagu ay xoogaystaan ay bataan ay noqonaysaa marka waxa jirta qawaacidaas waa qawaacid aan kula talnaa inaad daraasiisaan waxa kale oo jirta kuwaas waa qawaacid bull-in ah oo xidhada ku wanaajin kara ku soo jeedi kara kuna xoojin kara waxa jira qawaacid kale oo xidhada xoojin karaya xidhadii xoojin karayo adkeyn karaya waxa kamid ah tanaasulka iscafinta ونبي عليه الصلاة والسلام وبناتنا وحنو تلمامي إن تنازل يعفنتو أنا شيء نقول إلا أيوة إنا قرحصه إلهنا سبحانه وتعالى وحنو تلمامي ده القرآن حنو تلمامي إن تذكي سكعفنه هذين نجعل إله سبحانه وتعالى ما أنت قيامين عفيه وأكيد هذا قرن إنسان قصدي أبو بكر الصديق لو عنا تاي سبحانه أبو بكر الصديق لو عنا تاي اللي يقول لي هي تذكي سكعفي أطومي سي أما تذكي إن أنت سحمان تكون شيء سكعفي سي أديقة سي أديقنا إلهي سبحانه وتعالى ما أنت قيامي وعفيه ما تعلم ما أنت قيامي إلهي سبحانه وتعالى إنه كعفيه مركا قفكي واحد شكتا قفكي على حيرك وضع الهيدين عم بدك على حيرك وضع الهيدين واحد شكتا قلادات فربضان iyo waxyaabo farabadan oo lagu soo tuurayo oo kugu dhacay adiga laga yaabo noloshaada inay saameyso laakiin qalad uu dhacaa maaha khalad inuu wax khalad inuu dhaco ama gaf inuu dhaco laakiin waxa khalad ah waxa 90% qof wanaagsan ina 10% oo ku xumaaday inaad ku tuurtid ayaa qalad ah marka tanaasulka inaad barisid cafinta iyo dadka iska cafidid oo wixii qofkii qalad ku geystay in iska cafidid oo kaliya maxaad ka faa'iideysaa go'aanka aad qaadatay in iska cafidid maxaad ka faa'iideysaa inaad eegid laakiin aad ka eegtid for future qofkan intee inaad sii wada socon karaysaa inaad ka eegtid baa muhiim ah waxa jira qawaacida kale oo aan ka tagay sida qofka inaad la iscaawiyo la istaageero marka xidhada dadka la leedahay waxay ku dhiseen iscaawin iyo istaageero marka inaad inta qof karaysa inaad taageertid waxyaabaha waxa kamid ah waxyaabaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta qiyaamo aad caawintii taageerada u baahantay waxyaabo ku caawinay kamid ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa nabi alayhi salatu wasallam ku sugnaa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wa nabi alayhi salatu wasallam laha marka waxay tilmaamaysaa taasi in xidhadu ay ku dhisan yihiin daayiman in la iscaawiyo la istaageero oo meesha aad ka jilicsan tahay qof saaxiibkaaga ama qof ehelkaaga inuu ku taageero
zawjadaada ama cid kale inay ku taageerto dalalka aad leedahay inay buuxiso su'aalahaas culimadu ku bixiyaan badee waxay leedahay waxay la mid tahay xidhadu ama iscaawinta istaageeradu waxay la mid tahay bulukeed ka dhinaa guri dhan oo u baahnaa in qof inuu geliyo bulukeed guri dhan oo dhisnaa xabad bulukeed oo meel yar oo dolashayn qof geliyo oo kubaan marka saas oo la actually noloshaadu daldalooyin fara badan bay leedahay marka daldalooyinka meesha aad weakness ku leedahay waxa jirta qof haddii aad nolosha midowdaan ama nolosha aad wada qaataan qofku caawinay marka xidhadu daaimna wax ku dhisan iscaawin iyo istaageero barbar kale inuu taageero marka inaad isku daydo inaad adigu noqon shirin dadka adigu ama kaneeco dadka dhiiga ka shaqada aad noqotid qof adigana la caawiyo adna dadka caawisid intaasan jecel ku soo gabagabeeyo waan dheeray muuqaalka iga raali ahada inta muuqaal lamida ku kulmayno waxaan ku kala tegaynaa fi amaanillah السلام عليكم ورحمة الله